على ويا غدا كليتلسكا ومدى مركو دخ قالو ايشو ساو مريادو انت ان hadalkiisa waxba ka soo celinay inta markuu hadlayo hoos wax weeyis inta ama hunguri ama kursi ama magac u xilanaysa darajo inta sunbu xilka u diibta inta soo urursada tabadeedna inta wax garatana xarigu baa loo jeedaa inta soo baa tabayada oo xaqiiqo wax dhacay oo maaragtay jiro roo aan arkay baa ila maxamed siyaad barre ka shalay jirana uu gabaygu ku saabsan yahay mid maanta jirada uu ku saabsan yahay kabar baad waxa weeye si fuu ma ficilun buu gabaygu ka hadlaya qof hebel la yiraahdo ka hadlo ficilka wixii la yimaado uu ayuu ku saabsan yahay dawlad goboleedyada aan raaliga ka ahaynna xiriirka wanaagsan idan la yeelanin inaad go'doomisaan mararka qaarkoodna aad ku duushaan waxa weey madaxda qaranka oo kale socdaalada oo kale inaad xanibtaan ficilada noocaas oo kale markii la eego madaxweyne ma wada un muuqanaynin nin awood isku soo koobayo oo la soo baxaya waxa weeye dhaqamadii waxa weeye kaliya oo kale fiiri meesha wax ka xalisin waa meeshaas way oo dhaafay hal mar ay shacbiyadaadu hoos u degtay waxa jirtay dhacdo in Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo jabhada ONLF ka tirsan loo dhiibay Ethiopia xukuumaduna ay arrinkaasi qirtay sidaad ula socotay runtii arrintan sida aad og tahay ama la wada og yahay golaha shacabka yaa arrintan soo fargeliyay oo ah hay'ad ugu sareysa ee sharci dejinta waxay ka sameysay doodo badan aad bay uga hadashay waxay ka diyaarisay documentation markii ugu dambeysana waa codeeyeen codeyntaasi codeeyeenna waxaan soo oran karaa waa kama dambeys tabadeedna inta markuu sameeyo dadka marba intuu shiriya uu buusiyaro fudud wax ugu sheegaya waa wuxuu yaqaan gol dalooladeeda oo si yaro fudud buu u qancinaya wuxuu leeyahay ma ogtiin sida ay saas baynu sameeynaa berito in hadii la halka ka duseynaa dabetana halkii baynu galayna dabetana waa khalaas waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano ah inay ka hormarayso dawladda Afrika waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka ciribtirno waxaana saaran oo tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan magaalada ugu qurxoon inaan ka soo saarno 4 sano joogaya mana soo sharaxayo nomination daba qaadan maayo jid la xiraayo ma jiraayo oo la yiraahdo khilaafaad madaxweyne iyo prime minister ah dawladdan waxay ballan qaaday khilaafaad inuusan jirin in aqalka sare ay caasimada Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay World Bankiga bankiga adduunka uu nasiyay dhaqaale deentii ugu horeysay oo Soomaaliya la siiyo burburka ka bacdi lacagtani deyn ma aha waa deeq weyn feed my lips aniga ciidanka hadda isku haleen waayay Soomaaliyeed oo aan tababaran waay 4 sano waa inta ugu sahlan ogow maxaa adiga nabadgelyo guud iyo shacab guud nabadgelyadiisa xagee ka keenaysaa adigii baba isku haleen waay ciidankii Soomaaliyeed waxyaabaha ay qarxiyeen haday yihiin hoteelo haday yihiin guriyo inaan dhisno annaga maxay annaga ka masuula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino dawladdaani wadadii cadeed ay cagta saartay mar soo noqonayso waa soconay ummadda Soomaaliyeed way socotay horaan soconayna maqlays بريتو مركب بينودنا وحنا وان يلي لهاي سو هبل هبل سو كواني ما هيستان فرق أو يد على ذا يدينا عو كمان دقاق واي مالين بشنتا أو رسالة حري كرتين أيوة بطلك كل ريبية وأوجا إنس سوروبين أنا ورنتي حالي كما هين وأنا أوجا إنه دبل إيمان كره لكن وايدين تنازل واديري كري وفيتو كري أما دب بعد كوسو علين كري ما يلين حدي عاد قرشدي يقانتي مسؤوليتني عاد واركتين إنه يهنوع عس إسقى وايد لقات وأقول إن سمر بسري
nasiib darro puntland iyo jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen waa diideen waxaa diiday puntland iyo jubbaland nasiib darro xeerkayga wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo madmadoweysta waxaa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golahii shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyey waxaan ku iri qol gala wax ku soo heshiiya qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhowaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka 17 Sebtembar heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa heshiiskii Sebtembar 17 uu ka hadlay heshiiskii Sebtembar 17 waxa weeye waa sharci meel buu yaalaa aniguna waa saxiixay waxaan rajeynayaa inaan waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo la isku qabtana si xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ku jirto in looga wada hadlo laakiin principle-ka uu ku dhisan yahay aasaas ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aad looga fakiray aad looga shaqeeyay in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo kuwiina ku jeesarayla uu garanayaa inay ku jeesarayaan iyagu ma qiimeyn karaan qaldan iyo xaq u qaladku ka jira inta la isku jeedaabo isageena maarag ayuu dhaqaaqaya farmaajo koor intuusan madaxweyne noqon ma jirin siyaasi ka jeclaa in wax laga weydiiyo xaaladda dalka waayahay isla amniga markaan ka hadlayno masiibooyinka waaweyn ee qaraxyada markay dhacaan ee naafo badan ay lagu waayo oo shacabka Soomaaliyeed ay soo gaadhay inta badan ma muuqatid ma la arko adigoo shucuurtaada cabirayo dadka la wadaagayo maalmaha adag oo la hadlaya sababta hadda madaxweyne farmaajo uusan u hor imaan warbaahinta iyo fagaarayaasha su'aalaha lagu weydiiyo madaxda ayaa ah in wax kasta uu sheegay iyo ballan kasta uu qaaday ay been noqdeen waxa uu ku hadlana uusan aqoon Afrika waxay ku runtahay marka ninkii tagay xididayste oo meel walba hadii Ilaahay ka dhigo maaragtay oo hadii Ilaahay ka dhigo lug gashado ay ruuxdiisa iyo gilgilidiisu adkaato markaas uu bay isku waafaqday inuu xun yahay inta uu dhow yahay ama uu wax laga qaban karo ee ay fududahay waxyeelidiisa iyo rididiisa intuba heshiisku ma aho inta iyadu murmaysa midaleeyo waa wanaagsan midaleeyo waa xun yahay ayuu jiidanayaa tagayaayo maalin wax ka qabashadiisu ay aad u adag tahay ayaa la isku raacayaa inuu ninku khariban yahay